jaaliyadda Soomaaliyeed ee galbeedka waddankani Norway oo dhidibada loo taagay 2018 ayaa maalinimadii shalay isugu yimid shir sanadeedkii saddexaad oo sanadkan lagu qabtay magaalada Kanarvik. Shirkan oo xubnaha jaaliyadda iyo waalidiin ay ka qayb galeen waxaa laga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen dib u furidda dalka, waxqabadkii jaaliyadda ee 2021, howlaha ay jaaliyadda qaban doonto sanadaha 2023. Ugu horeyn waxaa kulanka warbixin ku saabsan caruur iyo waalidiin loo wada dalxiis heer sare loo soo agaasimay isla markaana ka mid ahaa waxqabadkii 2021 kulanka ka jeediyay Xaaji Cismaan oo ah madaxa maaliyadda maamulka jaaliyadda waqooyiga Hordaland oo hadda loo bedelay galbeedka Norway. Xaaji Cismaan ayaa sheegay in dalxiiskaas uu ahaa mid muhiimad gaar ah u lahaa caruurtii ka faa'iideysatay oo da'dooda u dhaxaysay 10 ilaa 18 jir ay u riyaaqeen isla markaana wali aanu maankooda ka go'in farxadii ay halkaasi ka heleen. insha Allah ana waxaan ka hadli doonaa tuurkina u dambeeyay oo ilmaha wadnay marka tuurkaas wuxuu noo ahaa tuur aad iyo aad u muhiim ah oo caruurtii 10 ilaa 18 inta u dhaxaysa ayaan ahayn marka waxaan aadnay meesha la yiraahdo Boos Active waxaan halkan ka qaadanay magaaladan Kanarvik minibus oo qaadayo ilaa 17 qof يعني caruur ayaa loo badnaa san ahaan waxaan ahayn 3 qof oo boqsana ayaan macnaha aan ahayn marka tuurkaas يعني aad iyo aad ay caruurtii ugu farxday waa meel macnaha aad ilmaha muhiim u ahaa oo macnaha waa min cayaar waligood meel ay tagin oo ugu horeysay ay ahayd inkastoo caruurta markii ugu horeysay يعني meeshaas cayaartaas dadkii tawaatagay inta kale يعني sawir ayaan ka soo duubnay oo maxaa la yiraahdaa saga xirag ilmaha ay ku ordayaan oo cirkii dhulka inta u dhaxaysa maraayo يعني ayay ahayd marka run ahaantii anaga waaweyn ayaaba ka baqaynay macnaha ilmaha ay wax soo gaaraan sababtoo ah يعني markii dambe aad iyo aad ay ugu farxeen caruur xataa waxa jirtay aan isiri naftirkayga ilmaha kuwan ayagu caafimaad qaba soo noqon waayeen يعني waa meel aad u dheer oo cirkii dhulka dhexdooda xiro ku soconayo jirib dheer la soo marayo marka alxamdulillah markii dambe caruurtii يعني kuwii ka cabsanaya markaas meesha saalis waa ma geli karaan dhaay يعني ugu dambeys xataa waxay gaareen inay laba mar saddex mar ku noqdaan oo dhahaan يعني waa u bogni waa biisanayna marka waxay ahayd tuur aad iyo aad u qurux badan oo caruurtii maxal dhaas ay ku farxeen waliba markii la soo noqday ka bacdi يعني aniga ahaan يعني qaar ay iga codsadeen dhahan maxal dhaha meeshaas mar kale ma nagu celin karaa يعني aad u jeclaysanay marka tuurkaas wuxuu ahaa tuur noocaas oo loo bogay oo faa'iido weyn noo lahaa marka wax badan maxaan ku sheegay yani waa ka soo baranay oo hadii Allah idmanay insha Allah tuururka ama sanadkan soo socdo yani meel ka si fiican inaan aadno ama meeshii hataa aan ku noqono maadaama ilmaha ay jeclaysteen macnaha ay dalbadeen mar kale marka sidaas ayaan maxaan la sagaan ku sii socon doonaa insha Allah marka waa intaas markaan ka warbixiyo soddonkii bishii lixaad ayay ahayd aan malaynaya hadii aan qaldaneen marka aad iyo aad ayaan u bogni tuurkaas marka kii ka horeeyay insha Allah waa qof kale u day doonaa marka taas naftarkeeda yani baariya ka hadli doona insha Allah laakiin aniga tan markii ka ahdo ilmihi hataa qaar ay iga codsadeen inay ku noqdaan marka aad loogu bogay marka insha Allah intaas aan ku soo koobayaa Cabduqaadir Cumar Shariif oo loo garan ogyahay baariyow ahna madax mashaariicda jaaliyadda ayaa sheegay aasaaska maamulka jaaliyadda ay tahay rajo muujinaysa in wax la qaban karo oo ummadda ay weli damiirkooda iyo dadnimadooda ay nooshahay isagoo si kooban uga warbixiyay qaar ka mid ah mashaariicdii u qabsoomay waxyaabihii intii macnaha jaaliyadda waqooyiga Hordaland intay shaqeynayso waxyaabaha u qabsoomay waliba khaasatan waxaan rabaa inaan wax ka sii dhoo sanadkan hadda ugu dambeeyay 2021 waxyaabihii inoo xirgalay ana jaaliyaddan waxay shaqeynaysaa marka uu yar tahay 3 sano marka ugu horeysa waxyaabaha ay ka shaqeynayso wuxuu ahaa istaakuleen walaalaha markaas qofkii walaalaha ka mid ah waxyaabo dhibaato ay soo gaartay si loo caawin lahaa dhaxdeena isku gurmano
marka waxyaaba fara badan casharo fara badan aan ka baranay marka sanadkan nasiib wanaag waxaa inoo hergalay guddoomiyeen khayr la siiyo fursado fara badan oo la siiyey oo la soo ogaaday marka sanadkan waxyaaba ka heeday caruurtii ku nooleeday waqooyiga Hordaland jaaniso inaan siino laba fursadood aan helnay fursad ugu horeysa waxay aheeday 19 bisha lixaad taariikhda markay 19 bisha lixaad oo iskuulaadka ay soo xirmeen inaan caruurtii aan u kaxeeno tour markay ugu yar tahay 2 saac iyo bar aan u soconaynay meel la dhahayo Kinsarvik Michael Barker oo activity meesha ku yaal caruurtii aan u kaxeeno maalintaas waxay aheeday maalin xusid mudan tiro waxaan ku baxnay gaari 17 qofood qaaday minibus ah iyo 4 gaari 2 kamid ah 7 qaad ay yihiin 2 kamid ah 5 qaad ay yihiin gaaridaas waxaa lagu wada qaaday ugu badnaan waxay ahaayeen caruurtii waxaa la socotay waalidiinta qaar kamid ah waalidiintii la socotay caruur walba waxaan u ogoleen hal waalid inuu la socdo markay ugu yartahay waxaa socotay 8-9 waalid miyaa waxsaasaa socotay inta kale waxay ahaayeen caruurta aad ay u fara badnaayeen fursada aan u helno waxay ahayd caruurtii inaan gaarigii qarashaadkii meesha wax alla wixii kusii baxay in anaga jeebkeena inaan kasii bixino jaaliyadda jeebkeeda inay kasii bixisaan dhahee marka maalintaas meesha meel waxay ahayd go'doon ah aan maqaaxido waxsaas aan lahayn laakiin nasiib wanaag caruurtii waxaan fahamtay raashin ugu dalabnay hotel meeshii meel waxay ahayd caruurtii aad ay ugu riyaaqeen aad iyo aad ay ugu farxeen waxay la heeday meelaha dabaashay la heeday waxay la heeday toogyo la fuulay la heeday waxay la heeday meel biyo bad oo fahamtay dooni iyo waxsaas la fuulaayo waxay kale la heeday baabuurta ciyaalka ay jecel yihiin oo labadooda marka barnaamij aan la soo koobi karnay la heeday waxaa kala usii dheeraa ciyaalku waxay ku sii haysteen tuurkii dheeraa loo sii socday weliba waxaa aniga khaasatan ninka gaariga weyn ah waday minibuska waday caruurtii waxaan ku dhahay intaan sii soconay intaan soo naqraynay labadaba marka waxaa ka muuqatay farxad aan la soo koobi karin marka waxaa dhacday dagaalkaas ilaa haddana lagu haysta aniga xataa waxay dadii ugu kaliftay mar labaad inaan fahamtay iskayga inaan ilmeyga u kaxay aan geeyo ilaa haddana waxay noqotay arrin ilaa hadda lagu sii hayso oo lagu dhaho mararka qaar goormee aadina goormee u noqonaynaa marka fursadahaas aan soo maray fursada kalena waxay ahayd cali ka sheekeeyay voice active ayadana waxaan wadnay caruurtii tuurkii ugu horeeyay horta kan hadda ka sheekeeyaa waxay ahayd caruurta daadoodu u dhaxayso 12 sano jir ilaa iyo 7 sano jir hal sano wixii ka weyn ilaa 12 sano inta u dhaxayso tuurka labaad waxay ahayd 12 jir ilaa iyo 18 jir caruur oo u dhaxayso marka labada wuxuu ahaa inaba aan caadi ahayn qarashaad aan caadi ahayn oo ku baxay marka waxaan rajeynayaa insha Allah sanadka xigi doono waqtiyada ilmaha fahamtay jaanisada ay heli doonaan fursada hadda aan helna fursada ka fiican aan sii faa'iideyn doono insha Allah Cumar Cabdullaahi Maalin oo ah madaxa isboortiga jaaliyadda galbeedka Norway ayaa dhankiisa ka hadlay faa'iidada caruurta iyo dhalinyarada uu u leeyahay isboortiga halka uu u mahad celiyay maamulka jaaliyadda oo ka taakulayay dhinaca dhaqaalaha waxaan wax yar ka leeyahay isboortiga iyo faa'iidooyinka uu u leeyahay dhalinyarada iyo caruurta wuxuu u leeyahay caafimaad ahaan physical ahaan activiteedka ilmaha wax walba isboortiga jir ahaan wax walba caafimaadka wuxuu u leeyahay horumar aad aan la koobi karin waxaan aad ugu mahad celinayaa jaaliyadda Hordaland oo mar walba naga taakulaysa xagga facility-ga oo isboortiga kubadaha qalabka iyo wix la mid ah waxaanu bilownay kubadda jaaliyadda Hordaland waqti laga joogo 5 sano 2016 ayaan bilownay ilaa hadda waxaan ku jirnaa isboortigii jaaliyadda waqtigii la bilaabana muddo kooban waxa ayna samaysay horumar aad aan la koobi karin halkan waxaan anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada isboortiga Hordaland
waxaan hambalyo uga dirayaa gudoomiyaha iyo guddiga jaaliyadda oo mar walba nala garab taagan hiliyo hooga. Aabe Cismaan oo ka mid ah waalidiintii ka qayb galay kulanka ayaa dhankiisa sheegay jaaliyadda galbeedka Norway inay soo kordhisay isku xidhka bulshada isagoo ku dhiirigeliyay dadaalada ay wadaan. Jaaliyadan wax badan ay soo kordhisay waxay soo kordhisay waxa waaye isku xidhka bulshada isbarka dhalinyarada sababtoo ah tuurkan waxa horta uu si muhiimsanay ilmihii Soomaaliyeed oo si shakhsi isu arkay oo meel wada kulmay oo meel ku cuntay marka ma sha Allah inaysan ay si fiicnaata ama hore u sii socotana waa rajaynaynaa marka aan tuurkaas Michael Barkan kan qayb galay ma sha Allah aad u fiicnaay. Ugu dambeyntii shirka waxaa warbixin dhinacyo kala duwan taabanaya ka jeediyay gudoomiyaha jaaliyadda galbeedka Norway Xasan Bile Maxamed kaas oo sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay maamulka jaaliyadda qabato inay tahay iscaawinta. jaaliyadda Soomaaliyeed ee waqooyiga Puntland waa jaaliyad ka howlgasha waqooyiga magaalada Bergen sida kamunaha Alfar Kamuna oo inta badan aanfa lagu yaqaano Knarvik iyo sidoo kale kamunaha Asturheim oo isagana waqooyiga ka sii jeeda kamunaha Alfar Kamuna shaqooyinka ugu muhiimsan ee jaaliyadda Soomaalida ay qabato waxaa ka mid ah iscaawinta iyo isgarab istaagidda ay la garab istaagayso dadka Soomaaliyeed ee degan waqooyiga Puntland gaar ahaan inta badan kamunaha loo yaqaano Alfar iyo Asturheim Kamuna shaqooyinka naga aan qabanay inta badan waxaa ka mid ah activiteed aan ugu talagalnay ilmaha yaryarka ah iyo sidoo kale inaan la dagaalano cudurka koronaha oo aan samayno wacyigelin la halmaasho si dadku ay ula falgeli lahaayeen caqabadaha iyo dhibaatooyinka uu koronaha geysanayo iyo si ay uga hortegi lahaayeen sidoo kale waxa aan ka shaqeynaa ama mashaariicda jaaliyadda ka mid ah inaan taageero siino dhalinyarada sportska ah oo aan ka shaqeyno sidii ay u heli lahaayeen gooba ay ku ciyaaraan kubadda una heli lahaayeen waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay kubadda ay u ciyaaraan oo activiteedkaasi u ahaado mid socdo waxyaabihii ugu badnaa oo jaaliyaddu ay ku guuleysatay inta ay jirtay waxaa ka mid ah isu keenidda iyo abaabulidda iyo sidoo kale midaynta dhalinyarada iyo mustaqbal samaynta ayatiinka bulshada mustaqbalka iyo sidoo kale abuuridda mashaariic la halmaala ilmaha iyo waalidiinta. mashaariicdu way socdaan waxaan rajaynaynaa haddii alla raalli ka noqdo inay noqdaan mashaariic dadka iyo deegaankaba waxtara. shaqada ugu muhiimsan ee mashaariicdu ay la xiriiraan ama la halmaalaanna waxaa waaye dadku inay fahmaan lana qabsadaan nolosha waddanka aan joogno isla mar ahaantaana ay capacity ama awood u yeeshaan inay ka mid noqdaan bulshada aan la joogno oo u nimid. jaaliyadda Soomaalida ee galbeedka Norway ayaa sanadihii ugu dambeeyay kordhisay abaabulka dadweynaha iyo waxqabadka arrintaas oo laga dareemi karo horumarka ay sameeyeen muddada yar oo ay jireen waxaana la oran karaa arrintan waa mid ku dayasho mudan oo ay tahay in loo min guuriyo magaalo kasta oo ka mid ah dalkani Norway oo ay jaaliyad Soomaaliyeed ku nooshahay inay kaga daydaan jaaliyaddan yar ee iyadu garatay danaheeda iyo horumarinta bulshada ay matalaan.